بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا هبه وناكسن داوديال كسو دوادا برامج gaar ah aynu ka eegayno xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka qodobada caawa barnaamijka ku daawan doontaana waxaa ka mid ah inkastoo uu hakaday dagaalkii xasuuqa ahaa ee Gaza Israa'iil ka waday kadib xabad joojintii la gaaray haddana weli waxaa ka jirta gudaha Gaza qatar naf iyo maalba galaafan karta taasi oo lagu tilmaamay halis dagaal oo kale maxay tahay qatartan yaa sigeysanaya maxaase looga hortagi lahayaa ilaa iyo hadda macluumaad faahfaahsan oo arrintan ku aadan ayaa barnaamijka idinkuga haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa ciidamada Israa'iil gaar ahaan kuwa ku sugan waqooyiga iyo xadka Lubnaan oo sameeyay dowladtusyo ciidan oo lagu tilmaamay kuwo cabsi gelin ah haddaba maxay tahay ujeedada dowladtusyadan ma hordhaca weeraro Israa'iil ay ku qaadi doonto Lubnaan ba mise waa kuwo Xisbullah loogu goodinayo yaasa ka qayb galay dowladtusyadan waxaan idin soo gudbin doonaa caawa qabiir ku xeel dheer arrimaha militariga oo si qoto dheer uga hadlay ujeedada dowladtusyadan iyo waxa xilligan ku soo beegay barnaamijka waxaan kulan ku eegaynaa caawa madaba in Faransiiska uu isku diyaarinayo dagaal suurtagalnimadiisu ay haatan dhowdahay oo ka dhex qarxa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka muddada dhow dhammaan Yurub dhamaanteed ku baraarugsan tahay arrinkan maxayse tahay naxalinta ku beeran uu ka dhawaajiyay madaxa shaqaalaha ee ciidanka Faransiiska yana waan idin soo gudbin doonaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijkeena soo dhawaada mar kale habeen wanaagsan daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir waanad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka ee habeennimadan Faransiiska ayaa waxaa isku diyaarinayaa suurtagalnimada dagaal muddada dhow ee Ruushka iyo sidoo kale dhex mara dalalka reer galbeedka iyadoona taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska Fabien Mandon uu carabka ku adkeeyay in ciidamadiisu ay tahay inay u diyaar garoobaan naxdin 3 ama 4 sano gudahooda oo ka dhan ah Ruushka kaasi oo laga yaabo inuu ka sii wado dagaalka qaaradda Yurub isagoo uu ku sameeyay dadaalada hubeynta cusub ee Faransiiska Mandon ayaa u sheegay xubnaha guddiga difaaca ee golaha qaranka in ujeedada ugu horeysa ee ay u dejiyeen ciidamada qalabka sida ay tahay inay u diyaar noqdaan dagaal la yaab leh oo 3 ama 4 sano gudahood ah taasi oo ku noqon doonta imtixaan waxaana uu xusay in imtixaanka durbawa uu noqon karo mid isku dhaafan balse laga yaabo inuu noqdo mid aad u dagaal badan Mandon oo xilka taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska qabtay 1 bishii Sebtembar ayaa sheegay in Ruushka laga yaabo inuu sii wado dagaalka qaaradda Yurub ka socda waxaana arrintan ugu muhiimsan ay tahay ay ugu diyaar garoobayaan haatan sida ugu hadalka u dhigay falanqaynta taliyaha Faransiiska ayaa la mid ah hay'adaha sirdoonka Jarmalka kuwaasi oo toddobaadkii hore ka digay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu la galo iska horimaad toos ah oo ciidan oo lala galo isbahaysiga NATO hanjabaada laga yaabo inay dhab noqoto ka hor inta aan la gaarin sanadka 2029 Mandon ayaa sheegay in Moscow ay u aragto Yurub mid dhammaanteed aad u tabar yar haatan isagoona adkeeyay in dhinaca Ruushka uusan ka labayn doonin isticmaalka adeegsigiisa xooga laakiin waxaa intaasi ku daray in wax waliba ay u baahan yihiin si ay kalsooni u yeeshaan ay tahay inay diyaar noqdaan xilligan isagoo uu xusay in dhinaca dhaqaalaha dadka warshadaha iyo reer Yurub ay kaga xoog badan yihiin dhanka Ruushka nama cabsi gelin karo haddii aan rabno inaan isdifaacno ayuu yiri Mandon isagoo uu difaacaya sababta korarka miisaaniyadda difaaca ee Faransiiska haddii kuwa naga soo horjeeda ay arkaan inaan si dhab ah uga helanahay difaaca isla markaana aan leenahay go'aankaasi waxaa suuragal ah inay dib nooga gurtaan ayuu yiri Mandon laakiin haddii ay naga dareemaan inaynu diyaar u ahayn inaynu isdifaacno ma arko inay jiraan wax kale oo naga joojin kara ama naga hor istaagi kara inay dagaal nala galaan waa tahay markana aynu xagga Israa'iil qoraansano ciidamada Israa'iil gaar ahaan kuwa ku sugan waqooyiga iyo sidoo kale xadka Lubnaan oo ayaa waxay sameeyeen dowladtusyo ciidan oo lagu tilmaamay kuwa cabsi gelin ah haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa dowladtusyadan qabiirka arrimaha militariga Kornel Xaatim Kariim Al-Falaaxi ayaa sheegay in dowladtusyada dhawaan ay qabatay cutubka 91 ee ciidamada Israa'iil ay muujinayaan
suurtagalnimada ah in colaad hordhi ay ka dhalato xadka Lubnaan si looga hor istaago Xisbullah inay dib u dhisato awoodaheeda. waaxda waqooyi ee cutubka 91 oo loo yaqaano qaybta Galilee ayaa toddobaadkan qabatay tababar ee lagu kordhinayo waxtarka iyo diyaargarowga dagaal waana tababarkeedii ugu horeeyay tan iyo 2 sano oo dagaalka uu ka socday ee marinka Gaza. waaxdani waxay mas'uul ka tahay dhammaan xadka Lubnaan laga soo bilaabo Ras al-Naqura ilaa dhulka la haysto ee beeraha Sheba. intii uu ku jiray booqashada dowlatusyada taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil iyo Zamir ayaa ku booriyay saraakiisha inay dib ugu laabtaan dowlatuska korna ay u qaadaan diyaargarowga dagaal ee dhammaan jiidaha iyagoo sii wada howlaha howlgalka kana hortagaya waxa uu ku sheegay hanjabaadaha isla markaana ku ilaalinaya goob kasta heer sare oo diyaarsanaan ah. falanqayn uu baahiyay telefishinka Al Jazeera iyo Al-Falaahi ku sheegeen waaxdan ay balaarinayso gacan ku haynteeda dhulka waxayna ka kooban tahay ilaa 4 qaybood oo goboleed isagoo sheegay in dowlatuskii ugu dambeeyay uu badan yahay mid loogu diyaar garoobayo weeraro ama horudhac u ah suurtagalnimada dagaal Israa'iil ay ku qaado Lubnaan. dowlatusyada waxaa ku lug lahaa ciidan badeed kuwa dhulka ah iyo qaar kale oo cirka ah waxaana uu ka koobnaa xeelado ka hortagaya duulaano gudaha magaalooyinka Israa'iil ah iyo weeraro diyaarado aan duuliye lahayn ah oo ka imaanaya xagga waqooyiga sida uu sheegay Al-Falaahi. waxaana intaasi uu ku daray in marka laga reebay inuu yahay fariin cabsi gelin ah dowlatuskani uu muuqdo mid gogol xaari kara suurtagalnimada dagaal ka qarxa koonfurta Lubnaan ilaa webiga Litani iyadoo Mareykankuna uu sheegay suurtagalnimada ah in Israa'iil ay si gooni ah ugu dhaqaaqdo dagaal haddii Xisbullah aysan hubkeeda dhigin iyadoo uu laga duulayo xaaladda gobolka ee qalalaasiyaha leh iyo Israa'iil oo ku adkaysanaysa inaysan jirin xoog ciidan oo kasoo horjeeda iyada oo Gaza, Suuriya ama Lubnaan ah ayuu Al-Falaahi sheegay in dowlatusyadani aysan u muuqan kuwa caadi ah oo sida la sheegayo ah. waaxda 91 waxay ahayd mid ka mid ah unugyadii ugu horeeyay ee laga soo saaray gudaha Gaza isla markiiba kadib markii xabad joojintu ay dhaqan gashay si ay u bilowdo hogaaminteeda gobolada waqooyi oo ay ku jiraan 3 kooxood oo kale. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa sheekada ku aadan xitaa haddii ay soo dhamaadeen duqeymihii Israa'iil ee Gaza ay ka wadeeyay xasuuqyadeedii wali waxaa jirta qatar qarsoon oo kumanaan qof nafta dhaafin karta balse intaynu sheekadaasi u gudbin aynu ku hakano qadar xayeysiina. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shareecada islaamka qaybaheeda kala duwan waxaa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyey qayb cusub oo online ah waxaana ka mid ah culuumta shareecada oo ilaa 6 qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga quraanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee quraanka haddii aad degan tahay magaalada Nairobi macadku waxa uu diyaar idin leeyahay macallimiin guriga kuugu iman karta faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka gaarka ah oo ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe oo si toos ah habeennimadan idinkaga imaanayay stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebook, YouTube-ka, Twitter-ka iyo waliba Telegram-ka. warbixino qoraalaha falooyin iyo wararba waxaad ka heli kartaan ood ka akhrisan kartaan barta aynu internetka ku leenahay www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaag markan aynu qoraansanno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka. inkastoo uu hogaday ee dagaalkii xasuuqa ahaa ee Gaza Israa'iil ay ka waday muddada 2 sano ahayd xabad joojintii la gaaray kadib haddana wali waxaa ka jirta gudaha Gaza ee burbursanaan oo Gaza oo burbursan waxaa ka jirta haddana qatar kale oo ay wajahayaan dadka ku soo laabanaya deegaanadoodii oo burbursan isla markaana nafta dhaafin karta dadkaasi. walow dhawaaqii duqeymaha Israa'iil oo Gaza ka yaraaday haddana halis kale oo dhimasho ah ayaa si aamusan waxay ugu dhumanaysaa burburka hoostiisa iyo guryaha baaba'san waana bambooyin gantaalo ama miinooyin aan weli qarxin oo daadsan dhulka la dumiyey ee burbursan uma qaylinayaan sida diyaaradaha dagaalka ama madaafiicda balse waa kuwo si lamid ah u dila dadka ka agdhowaada ee kusoo laabanaya goobihii la burburiyey ee hore ay deganaayeen. sida uu sheegay Ismaaciil Al-Tawaabta oo ah agaasimaha xafiiska warbaahinta ee maamulka Gaza waxa la diiwaan galiyay in ku dhawaad 20,000 oo hubka dagaalka ah oo aan weli qarxin kuwaas oo yaala guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaankeeda Gaza 2 sano ka hor.
haraagan waxyaabaha qarxa ee dagaalka waxa uu ka kooban yahay gantaalo waaweyn ilaa miinooyinka dhulka lagu aaso khatar toos ah oo dila ah waa dila aamusan oo sugaya qof aan ka wada qabin inuu kusoo dhawaado ayuu al-shabaabta u sheegay warbaahinta The National lagu magacaabo waxaana intaasi uu ku daray in kooxaha dabdamiska iyo injineeriyada qaraxyada ay ku geeriyoodeen qaarkood iyagoo isku dayaya inay burburiyaan gantaaladani iyadoo oo la raacayo qorshe ay diyaariyeen maamulka Gaza kooxo qaas ah ayaa baaraya xaafadaha la burburiyay iyagoo calaamadeynaya meelaha khatarta ah oo karantiilaya marka ay suurtagalka tahay hase yeeshee horumarka waa mid aad u gaabisa sababtoo ah qalabkii injineernimada ee lagama maarmaanka ahaa ma soo geli karo gudaha Gaza maadaama Israa'iil oo xukunta xuduudaha Gaza ay sii wado carqaladeynta gelitaanka qalabka lagama maarmaanka waa ayuu yiri al-shabaabta caruurta iyo sidoo kale shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa ah kuwa ugu halista badan ee la kulma khatarahan maadaama ay waqti badan ku qaataan burburka hal taabasho oo dhaqdhaqaaq yar ama sidoo kale kulka oo kordha ay waxa uu sababi karaa qarax daqiiqad kasta ka dhasha walxahan aan weli qarxin ku hoos jira burburka tan iyo bilowgii xabad joojintii ugu dambeysay 10kii bishan Oktoobar la hirgashay dadka reer Gaza ayaa dib waxay ugu soo laabanayeen guryahoodii hore iyo wixii ka haray guryahoodii ee meelaha ciidamada Israa'iil ay ka bixeen ku yaalay oo ay ku jirto magaalada Gaza oo aad u burburtay afayeenka dabdamiska oo lagu magacaabo Maxamuud Baazal ayaa sheegay in khatarta qaraxyadan aan qarxina ay ka jirto meel kasta waa guryaha iskuulada iyo xitaa goobaha ciyaaraha halista ayaa sii badanaysa sababtoo ah bambooyinkani waxaa lagu dhex aasay meelaha dadku ay dib u dhisanayaan ayuu yiri Baazal waxaana intaasi uu ku daray in dad badan oo helay walxahaasi aysan garanaynin sida loola dhaqmo isbuucyada u dambeeyay oo kaliya waxaa la tacaalnay in ka badan 100 oo hubka dagaalka ah oo aan weli qarxin ayuu yiri laakiin ma awoodin inaan dhammaantood ka jawaabno sababtoo ah qalab yari iyo sidoo kale shaqaale tababaran ayaa naga maqan ayuu yiri qalabkii cuslaa ee loo adeegsan jiray soo saarista gantaalada waa la burburiyay waxaan ku qasbanahay inaan ku shaqeyno qalab yar taasi oo khatarta ku sii kordhisa kooxaha iyaga ayuu yiri waxaana uu ku baaqay in shacabka aysan taabanin oo aysan u dhaqdhaqaaqin isla markaana calaamadeeyaan goobta isla markiiba ay la soo xiriiraan kooxaha dabdamiska iyo kuwa kale ee ku shaqada leh hal qalad ayaa ku filan in uu sababo qalabkani ee dhimasho ayuu yiri Yahya al-Hajar oo ah aabba 30 jir ah oo 3 caruur ahna haysta oo ka soo jeeda xaafadda al-Sabtaawi ee waqooyiga Gaza ayaa sheegay inuu dib ugu soo laabtay gurigiisa 2 maalmood kadib xabad joojinta waxaana uu ka helay gantaal weyn oo aan qarxin oo yaala beertiisa muuqaalku waxa uu ahaa mid argagax leh ayuu u sheegay warbaahinta ma geli karin ee gurigeeyay waxaan ka baqanayay inuu gantaalkaasi qarxo daqiiqad kasta isla markaana uu waxyeeleeyo waxaana uu sheegay inuu si joogto ah u wacay kooxaha dabdamiska balse ay ka mashquulsan yihiin kiisas badan oo kuwan la mid ah waxay ugu yiraahdeen shaqadu way socotaa waana sugayaa laakiin ilaa markaasi gurigeena kuma laaban karno ayuu yiri hadda isaga iyo qoyskiisu waxay ku sugan yihiin dhanka bariga ee Gaza ee dib u laabashada waxay la mid tahay ayuu yiri isdilid waxaan sugaynaa inta gantaalkaasi la burburinayo si aan ugu laabano nolosheenii hore inkastoo oo weeraradii Israa'iil ay joogsadeen iyadoo oo dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ay isku dayayaan inay xabad joojintan joogteeyaan haddana dadka Gaza ma dareemayaan badbaado ilaa qalabkan aan qarxin ee hubka dagaalka ah laga nadiifiyo burburka ee guryahoodana ku hoos jiraan laga nadiifinayo gantaal kasta oo aan qarxin waa waqtigiisii sugaya waana sii wadida dagaalka iyadoo siyaabo kale loo marayo ayuu yiri al-shabaabta oo ka hadlayay arrinkan waa hagaag daawadayaal sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii gaarka ah caawa aynu ku eegeynay xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe ee arrimaha kale ee caalamka si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir tani intaynu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo ku soo dhowow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumarba leh xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso kuwaasoo ay ka mid yihiin baaritaanka iyo daaweynta cudurrada guud baaritaanada kala duwan sida dhiigagga MRI-ga raajada ECG-ga iyo ultrasound-ka daryeelka caafimaadka ragga iyo dumarka daaweynta xanuunada kala goosyada dhabarka qoorta iyo garbaha nadiifinta dhagaha
baaritaannada caloosha iyo tayroodhka la talinta caafimaadka maskaxda walwalka iyo niyadjabka daryeelka dhaawacyada iyo lafa xanuunka waraaqaha iyo dhammaan foomamka caafimaadka adeegyada fitamiinada oo dhammaystiran xaruntu waxa ay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon fariin qoraal ah ama online waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas xarunta private walk in clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shafar Bush wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda private walk in clinic la kulan dhakhtar isla maalinta aad u baahato internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah